muuqaagu iga maydhila dhibtan soo mare hooyoy macaan intan ka maqnaan waan maagano mafaaciyo hurdab wiska maanace hooyoy macaan كاتب ملكستا شكرا سومالي وين سلامية وحويان ولا شيء ناول كوكين مانتا وحي ذلك هذا شهيدية نقنكي لكن دبانو يرجوك سدي وايو أرين عجيبة بالاركي مانتا أو شكل عدي ورونا حقيقة أيامها كان ما حنقول ميديا وحليس لوريجا يا قبرير أو غير كودي أي كسوتورين دولكا استراليا يويتري مريكان كحاجة سبيالين مركا نستحى علي عبد الله بلا يراها هويدنا عنب عبد الله بلا يراها marka gabadha yar runtii aad buu dayarto waa gabadh aad u yar ana waxaan soo dhan karaa 15 baa mise waa 14 jir ilaa 16 u dhaxaysa haddana waxay ka hadlaysaa muddo hore in la soo dhaqan celiyay amal oo la soo tuuray oo lagu tuuray wadanka Mareykanka lagu tuuray astaghfirullah waa la soo dhaqan celiyay si u hadlayso dayadu male waa la soo dhaqan celiyay laakiin sababtu say hadalku u socdo baa u eg in la soo dhaqan celiyay marka 7 sano ka hor aduu ilaa 8 sano ka hor ba waxay wax lagu soo tuuray wadanka Kenya marka lagu soo tuuray waxa loo geeyay family-ga xagga hooyada ka soo jeedo kulli cid baa loo geeyay habarteed baa loo geeyay hadhootana wala soo wareejiyay muddo marka ku noolayd iyadoo xilay 8 sano jooga ilaa 7 sano baan Kenya jooga markii dambana waxay tidhi habarteed baa la geeyay baan u tagay oo la geeyay oo joogta Ethiopia marka gabadha yar hooyadii aabaheed intay qaadeen uma geeynin habarteed Ethiopia joogta dad kale u wareejiyay aabaheed waxay sheegtay inuu baylood yahay oo New York iyo Australia iyo dhulka uu diyaarad u wado baylood uu yahay hooyadna dhulka taalo oo ay tahay gabadh marwaa meel degan marka ilmaha hadii la soo dhaqan celiyo waxa la keenay Kenya marka meel si u sheegayso foodo looma saaro meel inta madax xasaa loogu saaray de mas'uul loogama dhigin si u sheegayso ehel baa loo keenay ehelkiina may dareenin oo qof la ilaaliyay ama la kargareeyay ama wax loo qabtay ma yahayna waxay u nahayd shaqada sida ka dhadhamaysa ilmo la tuuray oo shaqada ma lagu darsanin marka Soomaaliyeed meel kasta joogta waxay ka waninaya waxa noocaas inaydan ku shaqaysanin runtii wax fiican maaha waxa kan wax weeyaan waa gabadh yar runtii markaad aragtaan aad bay u yarta ana waxa oran karaa waa 14 jir ilaa 15 muddada dheer inta leegay leedahay xaggan Ethiopia joogay xaggan aan joogay يعني وحي كوري أنا قاعد بيلا يرى وح يعني معقولة ما هاي الله دقن عليو أما لا تورو المركز دم حكلي هذا يدو مركز يسوي ركتي دور سنة كدب إثيوبيا خبرتي بالشوق اللي كان خبرتي إن المهد استقالينا يرى شيء استلي خبرتي مركز وحي قلت نايقة بحجور قوي تورتي مركز دم السوق استاجي أم ستريت كانوا بحي ستريت كمركز بحينا وحن تجي تري وحي قبضتي عسكرتي إثيوبيا askartii bay wareysatay waxaan ku dhimay lama haysto marka waxa la geeyay home care baa la geeyay meesha caruuraha ay ku ururiyaan ahmaarada ayaa la geeyay halkii laba habeen u hoytay markii dambe kuwiina way soo gudbiyeen kuwa kale iyaga ka sareeyay u geeyeen kuwiina aad 6 bilood ilaa 7 bilood bay hayeen markii dambe ala kulli xaal kuwii labada habeen hayay way soo gudbiyay xalii meelan ku geeyin karna ma jirtay naabax baa lagu yiri marka uu kuwaas aadana loo geeyay dhowr bilood bay hayeen ilaa 6 bilood dabeedna way soo tuuray iyaguna waxa la yiri wax Allah ku qaban karnaa iyo meelan ku geyn karnaa toona ma jirto de bax baa la yiri nooga bax meesha banaanka haday soo baxday xukuladana oo de suuq iska taagan oo meel u dhaqaaqana garanayn baa Ilaahay wuxuu keenay gabadh Soomaaliyeed Soomaaliyeedna wallahi alxamdulillah rabbil caalamiin wax kasta ayna dhex maraan wax kasta siyaasadda lagu kala fogaado haddana waxaynu nahay dad aan meesha xun iskaga tagin baa nahay dad aad u wanaagsan waa nahay wallahi alxamdulillah rabbil caalamiin inaga mooyaa wax soo shaqaystanaya adduunku mobile haba oo iscaawinaya wax istaraya gabadhii heshay way gaxaysay dukaan Soomaaliya geysay sida aynu aragno dukaan alaab taal bay geysay oo bay ushtara dukaankii baan interview laga qaaday warkan markaa ku sheegtay marka ala kulli xaal waxaan u sheegayaa gabdhaha qurba jooga ee ilmaha tuuraya ilmihiina walaal iska tuurina idan ka dhalay mar dambana de yani ilmahan ma dhalaysid oo reer waa dhashay mas'uuliyad baa Ilaahay ka saaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu la xisaabtamaya meeshii hadda laga soo tuuray ee degareed oo ah qurbaha de haddana qurbo kala lagu sii tuuray wadankeedii hooyo lama geenin ehel looma geenin labada family midna looma geen sida la inoo sheegayo ee waa ilmo dhexda lagu soo tuuray dhexdana de ilmihi uu ka baxaya marka haddaan qof loo xil saarin marka gabadha yar waxay ku leedahay xagga baan ku noolaa
dee Kenya waa waddanka ay ka soo saarto kale waa qurbo waa ilmo yar oo dhashay runtii wax aad looga naxa weeyaan ilmo yar ciriya dhultoona garanaynin oo intaan qurbo joog ahayd oo aan cid allaal cid ay aqoon yani ay taqaanaba ayna jirin dadkeena hadda waddankii joogo oo kale dee xitaa qabiilkiisu yaqaanayo reeraha qabiilunbaa dadkeena isku afkartaan taasna ma aqoonin waxaan ku yidhi halkaas hadday joogto oo lagu soo tuurayna dee waa qurbo kale uun cid ma garanayso ehel ma garanayso familiyo looma geyn labadii family midna looma geyn marka waxay ahayd ilmaha haddii lasoo tuuray intuu dhulka kala baranayo in labada family mid uun loo dhiibo seedhka hooyo ama seedhka aabe oo qof mas-uul looga dhigo oo biilkiisana si fiican loo siiyo oo ilmaha la xanaaneeyo oo la dhaqaaleeyo laakiin runtii wax wanaagsan soomaalidaas reerkaas soomaaliyeed may samaynin hooyo iyo aabe wanaagsanna ma odhan karo aabbo baylooda oo diyaaradaha wado oo gobolka gobol u gooshaya ya oo say u sheegaysa waddan aad u kala dheer u gooshayo marba kacayo fadhiisanaya iyo hooyada guriga joogtay runtii ma odhan karaan waa dad wanaagsan waa dad mudayiciina weliba aabuhu inta badan aad ma laha waa hooyada xaqiiqda dhabta waa hooyada oo aabuhu waxba ma ogaa dumar baynu nahay wax laxaynu ka dhaadhicno buu rumaysanayaa marka waxa weeyaan gabadha yarayd markii la geeyey Kenya runtii cidna saasan loogu dhiibin oo la yidhi un Kenya iska celina Kenya maha arla islaam maaha guud ahaan marka laga hadlo islaam maaha islaamku way ku nool yihiin laakiin waa waddankii laga soo qaaday oo kale waa gaal iyo muslim gaalkaana baawar ku lahaa waa dhulkii ay deganay waa waddankoodii marka ilmaha yar xitaa haddii ay isdhiibto oo isku dhiibto oo inay dee kiristaan noqoto ama ay gaalowdo dee way iisiba u noqonaysaa waa u hawl yar tahay halka kan Kenyana dee waad ogtihiin waxaa jooga kuwa xaquuqul insaankan u doodna ama xuquuqda carruurta u doodna kuwa yidhaa hadday heli lahaayeen dee ama dib ay u ceshan lahaayeen ama markaasba lagu gaalaysiin lahaa marka runtii aad iyo aad arrin looga naxa weeyaan marka inaan la samaynin waxaan baa idiin sheegaya hooyo kasta oo doonaysa ilmaheeda inay celiso ilmaheeda markay waddanka ka saarayso horta si wacan ha ugu shooban garayso labada ehel mid un ha loo dhiibo waddankiisii hooyana ha la geeyaan anigu leedahay ra'yigayga qofna mas-uul ha looga dhigo biilkiisa si fiican ha loogu diro ilmahan ayaan border lagu xarayn haddii aad diraysaan waan kasoo horjeeda anigu carruurta bordanka lagu xaraynayo waayo ilmihii bordanka qudhiisa ma garanayo soomaali baa lagu xaraynayaa waa lagu jirdilayaa hadduu doono wuxuu doonaa lagu samaynayaa laakiin ha loo dhiibo haddii ilmaha yurub iyo maraykan laga gaxaynayo oo xoogay uu dalaf badan yahay oo aad rabta ilmahaagu inuu diin kuu soo barto waxaan leeyahay si toosa ilmahaaga u gaxee waddankii hooyagee labada family miduun u dhiib biilkiisa sii iskool uu kasoo rawaxo ama malcamad uu kasoo rawaxo oo ah dugsi quraan ha la geeyo oo cabaarna soo dhigto cabaarna uu guriga yimaado ilmihii nafis buu rabaa markaad meel saa ugu xidho dee wixii oo dhan baa bareenkiisa kusoo noqnoqonaya runtii ilmahaasi maskaxda ka xumaanaysa ama maskaxda ka dhamashgaroobaysa kuris fiican ma helayo oo maaragtay wixii uu filgaraynaya uu soo maray iyo meesha lagu xanibay inta badanna carruurtaas gun lagama gaadho ha dhowto markay soo koraan dee inta badan way isdhiibaan safaaradahay dib ugu noqdaana maraykan ha noqoto ingiriiska ha noqoto yurub ha noqoto meesha doonaan ha noqotee Ethiopia ilmahaas uu tagaa si loogu fududeeyo asxaab kale u helaya kuwii baa u fududeynaya meeshii buu ku noqonayaa safaaradu ahayd detailskoo dhan buu sheegaya adressku sheegaya dabeedna waxaa dhici karta waxaaba loo celinayaa meeshiisii malaayiin bay saas ku dhacday haddeerto haddii gabadhaasi ay yar tahay hadday heli lahayd qof kale oo ka horreeyey oo qurbo jooga oo sideeda soo maray yacni talu siin lahaa waa ogna talada la siinaya waxa weeye gabadhan way yar tahay runtii may il furin anigu waa waxaan leeyahay maba dhici karto ilmahan aad buu yartay 7 sano ilaa 8 sano markay joogtay Kenya iyo Ethiopia ilmahan intay ahayd markii la tuuray xilli la tuuro oo may ahayn 7 jir ilaa 6 jir ilaa 8 jir ilaa 10 jir inta u dhaxaysa ahayd suurtagal maaha ilmahan aad bay u yartahay in la tuuro maaha يعني كورستيدينا runtii aad iyo aad bay u baabaaday inantii yar tacliin may baranin waxaad ka gaxaynaysay way u fududaato hadday Kenya ay joogto yaba isku dhifto gaalada Kenya joogtay la gaala joogtay ama Ethiopia isku dhifto yaba waa gaale yani way fududahay ilmihii waayo ilmihii wax celinaya ma jiraan diin celisan laba barin ehelna looma geynin celiya oo tarbiyad wanaagsan siiya laakiin hadda doonaysa ilmaha ganad celiso waxay idinka baryayaa gabdhaha Soomaaliyeed adaa hooya ilmahaaga adaa dhalay u dirna si wanaagsan wadankiisa ugu celi labada family-na u geeban anigu aan tala idinku siinaya labada family marka loo geeyana ilmahaas intuu iska yaran nasto oo muddo yar ayama hore adigu ilaa 2 bilood 3 bilood ilmahan ha iska nasto oo
kufiyuuskii badnaa uu kala yimi Yurub ama America uu kusoo arkay calaantii bal waxaas ka yara degaan marka waxaad geysaa ilmahaaga schoolgee ama dugsi quraangee ilmihiyo markaa caadi dadkii soo dhex galay oo dadkii kala yara barta oo adeeradii arkay oo habreerihii arkay oo ayeeyooyinkii arkay oo awooyaashii arkay oo dadkiisii wax arkay oo ishu u yara baxday dee dugsi quraangee ama schoolgee kaasina ha noqdo mid uu kasoo rawaxayo laakiin mid saa loogu xidho lagaga dhaqaaqo waxba walaalka ma faa'iidaysaan runtii gabadha yar aad baan uga qeyrooday oo aan uga naxay haddii ayna maqlayso hooyada ilmaha dhashay magaceedoo saddexan waa taa la sheegay oo midhiyahoo dhan way ka buuxdaa gabadha yar haddayna maqlayso gabadhii dhashay ama aabihii dhalay wallahi may tashanin talo xumaa ku dhacday iyadu waa hooyo waxay soo odhanaysaa dee khayrkeedna ugu sheekaysa dumar baan nahay waan iska jecelayn layna ammaano dumarku way is yaqaaniin way is ogyihiin way iska jeceshahay in aan sirtaada la ogaanin waa iska jeceshahay in dee war wanaagsan adoo hoosta ka ba-ay war wanaagsan haddana banaanka aad isaga saartid oo aadan lahaynba marka hooyadaas iyadoo guriga fadhida xidhansa inantaydii waan wadayo waxaan geystay Kenya oo waxaan ku darsaday school oo waxaan ku darsaday malcaamada oo dee hi oo waxaan ku xareeyay Borden gabdhaha wadanka joogay u faanaysa oo iska dhigaysa mid ilmaheedii horumar gaarsiisay laakiin wallahi horumar maad gaarsiin maskaxdaad ka dhaamash garaysay maskaxdii baad ka dishay jirkii baad ka dishay waxaan ku yidhi way baabaaday noloshoodii baa baabaaday yacni kurimadeedii baa xumaatay ilmahaasna hadhowta fayuujarka dee raxmad ka heli maysid oo ku wanaagsanaan maayo markuu ilmaha garabkaaga baahnaa ee aad korin lahayd ee korniinkiisa aad u dhammaystiri lahayd baad tuurtay haddaad tuurtayna dee waxaad tidhi Kenya iska celi ama Ethiopia iska celi dee hadday tahay Kenya iska celi ama Ethiopia iska celi kollayba hadduu meel iska celinayo dee wadankaaga iska celi baan anigu odhan lahaa ra'yiyan wadankiisi hooyaan ku tuuri lahaa Soomaaliyan ku tuuri lahaa waliba gobolka uu degan yahay family-ga wiilka ama family-ga gabadha ayaan odhan lahaa ilmaha hala geeyo damaad markaa waxaad tirahaa dee iska celi waa kaas wadankaasan ku keenay laakiin iska celintaan haddana ha kusii dayni waa in ilmihii biil loo sameeyo caafimaad loo sameeyo oo meel la saara laakiin hooyadaas runtii wax aad iyo aad foolxun bay samaysay wax wanaagsan bay samaynin aad iyo aadna runtii waa looga gubtay annaga ka gubanay anigu maanta barnaamij kale ka hadli lahaa laakiin nasiibkayga arrintan baaba iiga xumaatay wallaahi aan ka sheekeynayo waayo waa ilmo yar oo dhashay oo diiqadsan oo ooyeyso argagax baa ka muuqda haddaad daawatid argagax baa ka muuqda oo duruuf adag baa ka muuqata marka insha allah waxay idinku waaninayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo ilmihiina haddaad celinaysaan magac iyo maamuus u sameeyay haddaad doonayso ilmahaaga uu diin ku barto haddaad doonayso inuu horumar ku barto haddaad doonayso inuu si wacan u koro haddaad doonayso inuu afka kuu soo barto ilmahaaga wadankiisa gee meeshuu u dhashay waliba gee ama reerkaagu u dhashay as leedahay wax waxtara baa ku dhow hooyo wanaagsan walaalo wanaagsan imika walaashaas ilaah baa idinku dhaarshay Ethiopia joogta ee gabadha yar hooyadeed la walaalay habreerta dee ilmihii way tuurta waxay ku tidhi inantaydii maadaama aad dishay dabadda iga bax maaha dabadda waad garanaysaa wadankeeni hooye maaha qurbaa la jooga waa qurbihii laga soo tuuray oo kale qurbihii laga soo tuuray afkiisayba garanaysa oo cid ay isu dhiibtay xitaa waa garanaysa ilmahan maxaad ka filanaysaa hadhow markuu xoog yeesho maxaad ka filanaysaa dib bay isu dhiibaysaa way soo korin silcaasay kusoo korin dowladdii ay marka hore ay kusoo kortay ama ay ku dhalatay ilmahaas uu ku dhashay ayuu hadhow dib isugu dhiibaya adreyskii buu sheegayaa magaciisa saddexan buu sheegayaa magacii waalidka la sheegayaa dheyd baafkiisuu sheegayaa dabeetana ihiisii ugu noqonaysaa in dib loo celiyo hadhowtana sharciga islaamka soo sheegan maayo ma fahanteen walaa adugu soo sheeganaya walaa ehel walaa Soomaali walaa diin buu soo ilmaha soo sheeganaya xaggaasuu iska soo dhigayaa horuu ka raacayaa kuwan gacanta waxaadinaya sida caruurta ula boodaya marka asxaabteeda qaaliga ahay waxaas oo kale idinku dhicin ha samaynina tala ahaan ilmahaga haddaad celinayso magac iyo maamuus u sameey meel dejiisa aad ugu fahamtid oo aad u tiraaya ilmahayga diin buu baranayaa carla islaamigee family fiican u dhiibo xitaa familygaagu hadday xun yihiin oo family yani wiilka xaggiisa uu xun yahay qofka xun ilmahaga ha isaga dhiibin qof wanaagsan u dhiibo xitaa waxaa ku dhaantaa gabadh la garanayo adoo ilmahaga u dhiiba oo guri u kireeya keligii ilmahaas haba midh ha noqdo ama koox ha noqdaan caruurtu guri u kirayso meel fiican deji gurigana u gogol biil la ku sii gabadh shaqaalo wanaagsan oo la isku huba oo aad garanaysidna u dhiibaan anigu ku leeyahay laakiin ilmo yar oo dhashay oo u baahan gacan oo aan gacan weli ka faaruqin maaha inaad tiraaho Kenya iska celi ama Ethiopia iska celi kolley hadduu meel iska celinayo Soomaaliya ha iska celiyo Soomaaliya aad kusoo tuurtid bay aniga ila tahay marka Soomaaliya waxay idin sheegayaa waxaas oo kale
وأرين حن ونعكسين إناد كوان تودان وأيضا سمين عرورها سيدا كل عدا والله وعرورة بدن وأن كو يلا بي صدحتوان أنا هاي هراي نوارجنا عروسة لو بافينا يو هراي أو نوارجنا عروسة أو بلنبلاي هراي نوارجنا عرور لطورة يا وحن كل الباب كل جا حداي وحن أركي وأنا بقول ده حاجة عن صار كوا الباب كوسط ما هو يدود أو علسي أو عرض إنجليز كنت كي علسي والله وإرد كيسكسو تاجي يضع الشيلن كبحين أنا ورقد وديبين أو ميل يعني يكون وقتين تشرين الباب كنت كوسط مصاقة مركا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصومالي وين محيدك قلت جيا سيدا ينبتقلي إن شاء الله ويرونا قسوي waxay la mid tahay anigoo makiyo madiina batago xaski Soomaali